barnaamijkeenan caawa wuxuu ku saabsan yahay asxaabul kaaf. Yee ahaayeen asxaabul kaaf? sidee ayayna ku timaaday qisada tani? gaaladii reer Quraysh ayaa u tagay Yahuudda waxayna weydiiyeen maxaan ku sameynaa nin sheegtay nebinimo, ilaan waxay ula jeedaan nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. kadib Yahuudii ayaa waxay ku tiri waxaa weydiisaan 3 arrimood oo kala ah dhalinyaro la waayay oo meel ay qabteen aan la garanayn, nin dhulkoo idil maray, iyo waxaa weydiisaan ruuxda. dabadeedna gaaladii reer Quraysheed ayaa u timid nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxayna weydiiyeen 3 arrimood. nabiga ayaa wuxuu ku yiri biri ayaan idinkaga warami doonaa, laakiin waxyigii umuusan imaanin nabiga. kadib gaaladii ayaa u timid biridii nabiga oo weydiisatay inuu ugu waramo 3 qiso, balse nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa wuxuu ku dhahay biri ayaan idinkaga warami doonaa. markay gaari dhowr cisho oo aan waxyina ku soo degin nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa xitaa muslimiintii yaabeen oo ay isweydiiyeen muxuu u soo degi waayay waxyigii. kadib eeba ayaa soo dejiyay aayadatan: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ha ku dhihin sheegaasaan biri falayaa adigoo aanan raacinin insha Allah ama hadduu alle idmo. maalintii dambe ayaa nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ku dhahay insha Allah biri ayaan idinkaga waramayaa. markaasay soo degtay qisada asxaabul kaaf, ninka dhulka meeray, dilqarnayn iyo ruuxdaba. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. waxaa jiray dhalinyaro rumeeyay Ilaahay, waxaan la dhahaa waxaa dhalay boqoro, deegaankooduna wuxuu ahaa deegaan gaaleed oo caabuda sanamyada iyo Ilaahay oo cid kale la wadaajiyo. dhalinyaradani ismay garanayn ee mid waliba wuxuu qarsanayay iimaankiisa. kadibna maalin ayay qoomamkoodii u baxeen ciid ay lahaayeen, balse mid kasta oo dhalinyaradii ka mid ahaa wuxuu muujiyay cudurdaar, waxayna ka hareen qoomamkoodii. dhalinyaradii ayaa isugu yimid geed hoosti. markaas baa mid ka mid ah sare kacay oo yidhi kuwaasi waa qoomamkeeni, waxay caabudayaan sanamyo eebba ka sokow. anigu waxaan rumeeyay eebbaha abuuray samooyinka iyo dhulkaba, mana caabudayo cid aan asiga ahayn. waxaa eebba isku xidhay quluubtoodii oo waxay isku raaceen inay eebba keliga caabudaan. dhalinyaradii ayaa waxay go'aansadeen inay ka fogaadaan qoomamkoodii oo ay hoy ka yeeshaan god. deegaankoodu oo ahaa buuruley ayay ka doorteen god ku yaalay. markaas bay galeen godkii iyagoo aqal ka yeelanaya. waxaa qiyaastaa caruur boqoradu dhaleen oo ka fogaanaya ehelkoodii oo gaalo ah, kana yeelanaya hoy god aan la garanayn waxa kaga soo bixi doona. markii ay godkii galeen ayay jiibsadeen. kadib eebba ayaa ku soo rogay raxmadii iyo naxariistii. waa ayna seexdeen, waxayna hurdayeen 309 sano. waxaad arkaysaa qoraxda oo markay soo baxdo u iilan xagga midig ee godka, markay dhacaysana ka gooynaysa xagga bidix, ayagoo ku sugan meel waasac ah oo godka ah. subaxa iyo galabtii ayay qoraxdu qabanaysaa si ay ugu helaan fitamiinaad daruuriga u ah jirka. hase ahaatee xilliga duhurka qoraxdu maysan qabanayn. waxay culummada dhaqaatiirta ah sheegaan in qoraxdu ay halis badan tahay xilliga duhurka. sidaas awgeed ayaa nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu u leeyahay qiiluu fa inna shaydaana laa taqiil. qayluladu waa hurdada xilliga duhurka, sababtoo ah shaydaanka xilligaasi ma seexdo. saxiixul albaani. dhalinyarada ehelkoodii way raadiyeen oo waxaa la galay baadigoobkoodii, laakiin maysan helin ee way ay ka quusteen. kadibna arrintoodii baa faaftay in la waayay dhalinyaro meel ay qabteen aan la garanayn. dhalinyaradii hurdaya ayaa eebba subxaanahu wa tacaala u gedgedinayay midig iyo bidix, si haddii uu qofka u arko uu ugu maleeyo inay nool yihiin, iyo si aan jirkoodii dhulka u cunin. waxaa moodaysaa inay soo jeedaan, haddana way hurdayaan. xitaa culummada tafsiirka qaar baa yidhaahdaa dhalinyaradu indhahoodu waa ay furnaayeen,
aygooduna wuxuu hurdayay albaabka. haddii aad arki lahayd waad ka jeesan lahayd adigoo cararaya, waana ka argagaxi lahayd cabsi darteed. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. aabbo wuxuu siiyey haybad ay makhluuqaadka kale kaga argagaxaan, gaar ahaan xayawaanka wuxuu ogwaadsadaa. dhalintii waxay godku hurdayeen muddo dhan 309 sano. jiilkoodii iyo jiilkii ka dambeeyeyna waa ay dhinteen. haddaba halkee ayay ku dambaysay arrinkoodii? maalintii dambe ayay hurdadii ka kaceen, waxayna isweydiiyeen imise ayaan hurdaynay. markaas bay dhaheen maalin ama maalin barkeed. ma oga inay hurdayeen 309 sano. dabadeedna waxay dareemeen gaajo. markaas bay mid ka mid ah dhalintii u dhiibeen lacag ka samaysan fiddo ama qalin, kuna dhaheen inoo soo iibi cunto, iskana ilaali qoomamkeena, sababtoo ah hadday ina ogaadaan way ina rajminayaan ama diintooda ayay inagu celinayaan. wiilkii waa uu baxay, isla markiiba wuxuu la kulmay duni isbedeshay, cimaaradihii iyo guryihii oo bedelan, iyo sidoo kale dadkii oo aan ahayn kuwii ay yaqaaneen. kadib wuxuu u tagay nin iibinaya cunto. markaas buu ku yidhi, lacagtan qaado oo iga gad cuntadan. ninkii wax iibinaya ayaa la yaabay lacagta uu wiilkan watay. dabadeedna wuxuu u geeyey boqorkii deegaanka. boqorkii baa warsaday wiilkii oo weydiiyey halka uu ka yimid iyo halka uu ka keenay lacagtan. boqorku warkoodu waa uu hayay in dhalinyaro la waayay muddo 309 sano ka hor. wiilkii ayaa ugu waramay inay shalay seexdeen godka, isaga iyo saaxiibadii, ayagoo ka cabsanaya qoomamkoodii. boqorkii ayaa ku yidhi, shalay maydan seexanin ee waxaad hurdayseen 309 sano. wiilkii asagoo yaaban ayuu u yimid dhalinyaradii. dabadeedna warkii ayuu u sheegay inay hurdayeen 309 sano. dhalantii way cajabeen. markay xaqiiqsadeen inay hurdayeen muddo aad u dheer ayay eebbe mahadiyeen. dabadeedna eebbe ayaa ruuxdoodii ka qaaday. dhalantii isla hal mar halkaas bay ku geeriyoodeen. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. dadkii ayaa yimid godkii, waxayna heleen dhalintii oo geeriyootay. markaas bay albaabka godka saareen dhagax. kadibna waxay isku khilaafeen inay godka dushiisa ka yeelaan masaajid. asxaabul kahf waxaa la isku khilaafay tiradoodii. qolo waxay tidhi waxay ahaayeen 3 wiil iyo eygoodii. kuwo kalena waxay dhaheen 5 wiil iyo eygoodii. sidoo kale waxay dhaheen waxay ahaayeen 7 wiil iyo eygoodii. hase ahaatee tirada rasmiga waxaa og Ilaahay subxaanahu wa tacaala. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. waxaa kaloo la yaab leh in eyga oo muslimiinta agtooda ka ah nijaas eebbe subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku xusay, sababtoo ah wuxuu la rafiiqay dad wanaagsan. qisada asxaabul kahf waxaad ka akhrisan kartaa suuradda 18aad ee loogu magacdaray qisadan, waa suuratul kahf, aayadda 9aad ilaa aayadda 26aad. xagee ayuu ku yaalaa godka asxaabul kahf? godka asxaabul kahf meesha uu ku yaalo khilaaf badan ayaa ka jira. waxaana la sheegaa inuu ku yaalo wadamada Turkiga, Suuriya, Yemen iyo Urdun. sanadka markuu ahaa 1963 ayay dowladda Urdun sheegatay in godka asxaabul kahf uu ku yaalo Urdun, ayagoo soo bandhigay god la yidhi waxaa ku aasan 7 qof iyo ey. ilaahay baana og arrinta saxda ah.